Bishan lixaad toddobadeeda sanadkan waxaa furmi doona waa koobka ciyaaraha adduunka ee dumarka. Koobkan ayaa ah kii sideedaad ee la qaban doono, kaas oo guddiga ciyaaraha ee FIFA ay bishii saddexaad 19 sanadkan France u calaami saartay inay martigeliso koobkan markoodii koowaad, iyadoo noqotay dalkii saddexaad ee Yurub ku yaala ee martigeliya koobkan. Haddii aan taariikhda dib u yar tixraacaan idhaahdee, koobkan ciyaaraha adduunka ee dumarka ayaa si rasmi ah u bilowday sanadkii 1991. Dabcan waa muddo haatan laga joogo 28 sano. Sida koobka ciyaaraha adduunka ee ragga ayaa kan dumarkana la qabtaa 4 sano mar. Sanadkii ugu horreeyay ee 1991 ayaa lagu sharfay inay dalkaasi China ay daahfurto koobkan. Sanadkaas ayay dalka Mareykanku qaatay koobkan markoodii koowaad taariikhda, sidaasna ku noqdeen dalkii ugu horreeyay ee hanta koobkan dumarka. 4 sano kadib 1995 ayaa lagu qabtay dalka Sweden ee Scandinavian-ka ku yaala. Isla dalka Norway oo ay daris wadaagaan oo ay sila ku wada yaalaan Scandinavian-ka ayaa hantay koobka. 4 sannadood kadib 1999 ayaa dalka Mareykanka lagu qabtay markii ugu horreysay. Isla Mareykankii martigeliyey ayuunbaa dabcan markoodii labaad hantay, halka sanadkii 2003 markii labaad lagu qabtay dalkii 4 sano ka hor lagu qabtay ee Mareykanka, balse sanadkan Germany ayaa hanatay. 2007 China ayaa markeedii labaad martigelisay koobkan tan iyo 1991. Markan Germany ayaa hanatay koobkan markeedii labaad 2 tartan oo isku xigay, halka sanadkii 2011 uu dalkaasi Germany martigeliyey, isagoo noqday dalkii labaad ee Yurub ku yaala ee martigeliya koobka. Markan dumarka reer Jabbaan ayaa koobkan hantay. Sanadkii ugu dambeeyay 2015 ayaa lagu qabtay dalka Canada. Markan Mareykanka ayaa hantay markeedii saddexaad, iyadoo noqotay dalka ku guuleysiga badan koobkan ciyaaraha adduunka ee dumarka, FIFA Women's World Cup. Sanadkan 2019 ayaa dalkii saddexaad ee ku yaala Yurub lagu qabtay. Dabcan markan France ayaa nasiib u heshay inay koobkan dumarka ay martigeliso. Haddaba maxaa ka cusub tartankan ciyaaraha adduunka ee dumarka mise FIFA Women's World Cup? Dabcan aniga ku bilaabi doonaa qodobkayga koowaad ayaa dabcan dumarada wadamada reer Chile, Jamaica, Scotland iyo weliba South Africa ayaa markan dad cusub sanadkan ka bilaaban doona ciyaaraha adduunka ee dumarka, iyagoo ay tahay markoodii koowaad guud ahaanba tartanka. Qodobka labaad, dumarka reer Talyaani ayaa soo rogaal celiyey iyagoo tartankan ka soo muuqan doona tan iyo 1999 iyo welibana dumarka reer Argentina ayaa iyaguna soo laba kacleeyey tan iyo 2007 oo ay dabcan waqtigaasi ugu dambeysay inay ciyaaraan ciyaaraha adduunka ee dumarka. Qodobkayga saddexaad, bishii saddexaad 15keedii 2019 ee sanadkan ahayd ayaa dabcan guddiga ciyaaraha ee FIFA ay cilaamisay inay FAR mise muuqaal caawiyaha siidhawadaha lagu soo darayo koobkan ciyaaraha dumarka ee sanadkan 2019, taasoo ka dhigaysa taariikhda markii ugu horreysay ee dabcan FAR lagu soo daro ciyaaraha adduunka ee dumarka. Guruubyada dabcan gruubka ugu horreeya mise gruub A waxaa ku jira waa dalka martigelinaya ee France, kaasoo ay kula jiraan dumarka wadamada South Korea, Norway oo rabtay inay markeedii labaad hanato tan iyo 1995 iyo welibana dalka Nigeria oo gebi ahaanba dabcan ah dalka keliya ee Afrika ka soo muuqday gebi ahaanba tartamada ciyaaraha adduunka ee dumarka. Barkood wanaagsan masha Allah. Group B ayaa iyaguna ku wada jiraan waa wadamada Germany oo markan rabtay inay markeedii saddexaad hanato koobka,
iyadoo rabta dabcan inay iska baraajayso mise dabcan ay gees kaga leexiso waddankan idhaahda Maraykanka oo dabcan dumarkoodu ay 3 jeer hanteen koobka. sidoo kale waxa guruubyo kula jira waa dumarka reer China oo dabcan koobkan raba inay hantaan markoodii koowaad, Spain iyo weliba South Africa oo iyaguna tartankan gebi ahaanba kuwa cusubba ciyaaraha adduunka ee dumarka. halka gruub C mise gruubka saddexaad ay ku wada jiraan wadamada Australia, Talyaani oo soo laabtay tan iyo 1999, Brazil iyo welibana islaamaha dalkaasi reer Jamaica. Group D ayaa iyaguna ku wada jira waa wadamada England oo tartankii ugu dambeysay 2015 kaalinta saddexaad gashay, Scotland oo iyaduna ku cusub koobkan, Argentina oo soo laabatay tan iyo 2007 iyo welibana gabdhaha reer Japan oo iyaguna raba inay markoodii labaad hantaan koobkan tan iyo 2011. Group E waxaa ku wada jira waa wadanka Canada oo dabcan iyadu waxay wadankii martigelinaysay tartankii ugu dambeeyay 2015, dalka Cameroon, New Zealand iyo welibana dumarka reer Netherland misaan idhaahda dumarka reer Dutch. halka group F ahna gruubka ugu dambeeya ay ku wada jiraan dumarka dalkaasi Maraykanka oo runtii dumarka aan loodin karin, kuwaas oo ku guuleystay 3 koob 7 tartan ee la qabtay, iyagoo welibana dalkii tartankii ugu dambeeyay 2015 qaaday dabcan markana raba in ay isdifaacaan oo ay hantaan markoodii afraad. sidoo kale waxaa kula jira wadamada Thailand, Chile oo tartankan ku cusub iyo welibana dumarka qoodha ee dabcan reer Sweden oo dabcan gabdha aad u shan. subxaanallah. dabcan waxaynu wada sugnaaba dabcan waa tartankan oo dabcan furmi doona jimcahaba nagu soo foodala dabcan nagu soo dhawaaday furmi doona runtii aan sugi kar laayahay talo Maraykan miyaa laga yaabaa inay tartanka markeeda afraad hanato, ma laga yaabaa inay Germany dabcan dalka Maraykanka iska qabatay tiraahdo u kaadi markan qaadan way baraajayso. dabcan ma laga yaabaa inay France iyana ay hanato koobkan iyadoo dabcan mucjiso ay noqonayso, waayo sanadkii 2018 raggoodii ay qaadeen haddana ay dabcan dumarkoodii ay hantaan. waa mucjis laga yaaba inay qaadaan. waxaynu wada sugnaaba waa tartanka ciyaaraha adduunka ee dumarka. Salaamu calaykum.